marka sidee loo isticmaalaa maadaama ay tahay daawo dhireed, sanjabiisha waxay ka mid tahay dhirta kuwooda ugu faa'iidada badan xagga caafimaadka. Sida ku cad cilmi-baarisyada laga sameeyey, sanjabiisha waxay muujinayaan faa'iidada aadka u badan ee u leedahay jirkeenna shaqo ahaan. Waxaan soo qaadan doonaa 5 faa'iido ee ugu waaweyn ee laga helo sanjabiisha iyo qaabka loo isticmaalo insha Allah. Kow waxa waaye sanjabiisha waxa ay caawisaa dheefshiidka oo waxay ka qayb qaadataa faarujinta caloosha. oo sidaan ognahay qofku markuu cunto cuno saacada kadib waa in cuntadii qaybna loo gudbiyaa mandhiciraha yar oo halkaas laga nuugaa oo qofka energy ama tamar ahaan u isticmaalaa, qaybna loo keediyaa wixii soo haro oo qashin iyo wax lamid ahna mandhiciraha waaweyn loo gudbiyaa si saxara ahaan ama wasakh ahaan banaanka loogu saaro. marka sanjabiisha marka waxay ka qayb qaadataa in dheefshiidka si fiican u shaqeeyo oo cuntadii laga faarujiyo caloosha. oo inta badan waxay faa'iido u leedahay dadka dareema dibriyada ama daac qurunka waxaan loo yaqaan ama calooshooda ee fadhiso oo dheefshiidkooda aad u shaqeynaynin. cunto markay cunaan oo kale ku dhahayo qofka caloosha ay dibrisan oo taagan oo caloosha dareemaya dheefshiidkiisa wax ka qaldayn wax la mid ah. ama dadka dheefshiidka ka xanuunsan ay aad u caawisaa sanjabiisha. sidoo kale sida hortiina ku qoran dadka aariyada caloosha ugu dhex wareegato dheefshiidkooda qaldan yahay wax aariyo oo kala caloosha ugu dhex wareeganayso oo hawo ama aariyo iyo wax la mid ah caloosha ugu dhex wareeganayso, ayagana sanjabiisha haddii ay isticmaalaan aad ay u anfacaysaa. marka guud ahaan qodob koowaad waxa waaye in sanjabiisha ay caawiso habsamo shaqeynta dheefshiidka. oo xitaa waxaa la dhahaa dadka lalabada dareema oo saawna dheefshiidka doo qaldamo si guud qofka lalabo uu dareemaya. marka lalabada qofku waa ay ka dejisaa ayaa la dhahaa sanjabiisha sida cilmi-baarisyada hortiina ku qoran. qofka doo lalabo badan leeyahay ama lalabo badan oo dareema markuu cuntada cuno kadib ama cuntada ka horbo waxaa fiican ayaa la sanjabiisha oo isticmaalaysana qaybta gadaal ayaan ku sharxi doonaa insha Allah. marka intaas waa si guud dheefshiidka ayay hagaajisaa ama saxda sanjabiisha. laba waxa waaye sida hortiina ku qoran cilmi-baarisyadana ay cadeynayaan sanjabiisha waxay aad ugu fiican tahay arthritis waxaan loo yaqaano ama xanuunadan laga dareemo kala goysida oo sida rheumatism waxa la mid ah. xanuunadaas ay aad u yareysaa sida cilmi-baarisyada hortiina ka muuqda oo sida hortiina ku qoran. cilmi-baarisyada la sameeyay waxay sheegayaan in sanjabiisha ay gali karta booska kaniinigan hortiina ku qoran ee brofiinka loo yaqaan oo ah kaniini loogu talagalay in xanuunka ama kaarka oo qofka ka yareeyo. marka sanjabiish qofka soo qaadana waa sharxi doonaa ama soo isticmaalaya qaybta gadaal aan ku sharxi doonaa insha Allah. balse sanjabiisha waxay aad ugu fiican tahay dadka ka cawda laf xanuunka iyo sida hortiina ku qoran iyo kala goysida sida ilbaha iyo wax la midka xanuun badan ka dareemo. haddii sanjabiisha ay isticmaalaan xanuunkaas waa uu ka tagaa ama waa uu ka yaraadaa sida cilmi-baarisyada hortiina ku qoran. faa'iidada saddexaad waxay tahay sanjabiisha waxay caawisaa haweenka xilliga caadada. haddii gabadha aad ay ugu xanuunsanaysa caadada sanjabiisha haddii aad u cabto xanuunkaas oo caadada ama dhiigga oo bishiiba hal mar ku dhacay gabadha waa uu ka yaraanayaa. xanuunkiisa micnaha ayaa ka yaraanaya oo sida hortiina ka muuqata ujeedaan cilmi-baarisada lagu sameeyey oo tijaabooyinka la sameeyey sida hortiina ku qoran. marka haddii caadada ku dhigto ama xanuun ku dareento oo sanjabiisha isticmaasho sidoo kale xanuunka waa uu ka dagayaa. sida loo isticmaalo waa sharxi doonaa waqtiyada la isticmaalo insha Allah. faa'iidada afraad waxay tahay sida hortiina ku qoran sanjabiisha waxay ka qayb qaadataa sare u qaadida wareegga dhiigga. oo ognahay sida hortiina ka muuqata blood circulation-ka ama qulqulka dhiigga inuu si habsamo leh u socdo. waxay caawinaysaa xubnaha jirkeena ugu muhiimsan sida wadnaha maskaxda, kiliyaha, beerka iyo dhammaan xubnaha jirkeena maadaama dhiigga uu yahay waxa jirkeena uu ku shaqeeyo. dhiiggana ognahay jirka wuxuu u kala gudbiyaa oxygen-kii
oo xubnaha jirkeena wuxuu u gudbiyaa ama uu gaarsiiyaa oxygenkii, sidoo kale wuxuu gaarsiiyaa nutrientskii ama nafaqadii ama cuntadii qofka oo qaatay. Marka sinjibiisha marka waxay ka qayb qaadataa qulqulka dhiigga inuu si habsami leh u socdo. Sababtan waxay tahay sida horta inuu ku qoran waxaa ku jiro maadooyin aad muhiim u ah sida magnesiumka iyo chromiumka iyo zingiga iyo wax lamid ah. Waa macdintaas ayaa ku jirta taas oo sare u qaado qulqulka dhiigga ama wareegga dhiigga. Marka faa'iidadaasna waa faa'iidada afaraad sida hortiina ka muuqata cilmi-baarisyo kala duwan ayaana lagu sheegay ama lagu cadeeyay. Faa'iidada shanaad waxay tahay wuxuu caawiyaa qofka xilliga hergebka qabo, oo haddii qofka sinjibiisha uu isticmaalo sidoo kalena oo ku darsado liin sida hortiina ku qoran iyo malab iyo wax lamid oo isku daro, hergebka qofka saameyn badan kuma reebo oo dhibaato badan qofka uma geysto. Inta badan bulshada intan aad ay u yaqaanaan wayna sameeyaan. Qof markuu hergeb ku dhaco waxay dhahaan sinjibiil iyo wax lamid ah cabay dhahaan oo shaah ku darsay dhahaan. Marka shantaas faa'iido waa shanta faa'iido ugu badan oo laga helo sinjibiisha. Faa'iidooyin badan ayaa jira cilmi-baarisada lagu sheegay, laakiin shanta faa'iido oo ugu muhiimsan uguna badan waaye oo sinjibiisha laga helo. Marka sidee loo isticmaalaa? Maadaama aysan ahayn kiimiko oo walxa kiimikaad aysan ahayn, qofka in yar ku filan ayuu koob shaah ku darsan karaa, ama sinjibiisha iyadoo sideeda ah ayuu calaalin karaa ama calaanjin karaa ama ruugi karaa si kala daa u dhigno oo jab yar oo ka mid sida hortiina ka muuqata, ama jabkan oo kale wax lamid ah qiyaas ahaan oo qofka inuu tumo ama uu shiido oo budadii shaah ku darsan karaa subaxii ay habeenkii xilliyada shaah uu cabayo. Marka aad ayay u caawinaysaa. Ama wuxuu samayn karaa qofka waa uu ruugi karaa haddii qof kuleelkeeda uusan ka baqaynin. Marka inaa fahanteen ayaa rajaynayaa sinjibiisha iyo faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo iyo sida loo isticmaalo. Insha Allah taala casharkeena sidee kusoo koobeynaa. Su'aalaha qabtaan qaybta faallada ama comments-ka inoogu reeba. Assalaamu calaykum.